السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع maanta aan ka hadlayno wuxuu yahay sheeko ku saabsan gabar aad u qurux badan ayaa wuxuu arkay gabar aad u qurux badan. Aabihiis ayuu u imaaday wuxuu yidhi aabe waxaan soo arkay gabar aad u qurux badan oo joog iyo jamaal haybad ilaahay u dhammaystiray. Odaygii ayaa wiilkiisa ku yidhi aabe gabadh aad soo arkad fiican tahay balse waa inaan arkaa marka hore. Aabihii gabadhii ayuu arkay markaas ayuu yidhi aabe gabadhan adiga uma qalantid, waxay u qalantaa nin waayo arag ah sideeda oo kale. Wiilkii iyo aabihiis ayaa aad iskula murmay, kadib waxay ku heshiiyeen inay isla aadaan saldhigga booliiska. Taliyihii joogay saldhigga booliiska ayaa ku yidhi si aan idin xaliyo waa inaan arkaa gabadha aad isku qabsateen. Taliyihii booliiska markii uu indhaha ka qaaday gabadhii ayuu yidhi labadiinaba uma qalantaan, waayo gabadhan waxaa guursan kara nin sharaf leh sideeda oo kaleete. Murankii ayaa halkii kasii bilowday. Saddexdoodu si u murmayeen markii dambe waxay gaartay arrintii duqa magaalada. Duqii magaalada ayaa yidhi arrinkiina waa inaan wax ka qabtaa, aan arko gabadha. Sidoo kaleete markuu indhaha ka qaaday ayuu yidhi saddexdiinaba uma qalantaan, waayo waxay u qalantaa mas-uul sideeda oo kale ah gabadhan. Sidii ayay afartoodii u murmeen. Kadib markaas waxay gaartay wiilkii uu dhalay boqorka oo aad looga dambeeyay. Wiilkii boqorka markay arrintii gaartay ayuu yidhi waa inaan arkaa gabadha intaasoo nin ee aad uga daba dhaceen. Wiilkii boqorka markuu arkay gabadha quruxda badan leh wuxuu yidhi yaa idin yiri gabadhan oo kale adinkoo saan ah daba carara. Wuxuu yidhi anay ii qalantaa gabadhan, dhammaantiina uma qalantaan. Gabadhii ayaa tiri aniga ayaa idinkala saaraya shantiina. Waxay tiri waan cararayaa, kadib ninkii isoo qabta ayaa i guursanaya. Way carartay, sida ay uga daba cararayeen waxay ku dhaceen shantoodiiba god weyn. Markii godka ay ku dhaceen waxay tiri aniga ma i taqaanaan. Markaasay dhaheen maya, waxaan ahay adduunyo, qof kasta uu iga daba cararaa oo uu jecel yahay, balse ima qaban karo oo waqtigii ayaa gaaban. Haddaba dunidu wax laga daba ordo ma leh, balse waxay tahay inaad adduunkaada iyo aakhiradaadaba isku dhammaystirato oo aakhiradaadana aad ka fikirto, adduunkaadana aad wadato sida qof aan ka dhimanayn. Waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan. Fadlan haddii aad ka heshay like saar, comment ka soo bixi, noona share.